Baarlamaanka dalka Hindiya ayaa meelmariyay sharci cusub oo dambi ka dhigaya furiinka dumarka ee waafaqsan shareecada Islaamka. Saddex dalqadood ayaa shayga siinaysa awood uu ku furo xaaskiisa si dhaqso leh, isagoo afka ka dhahaya saddex kelmadood ama xitaa qoraal ahaan u soo gudbin kara. Maxkamadda Sare ee Hindiya ayaa sidoo kale sanadii 2017 dalaaqda ku tilmaamtay mid ku xadgudbaysa dastuurka dalkaasi. Dadka taageersan sharcigan cusub ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda dumarka. Dadka laga helay inay ku xadgudbeen sharcigan cusub ayaa mutaysan doona 3 sano oo xariga ah. Xisbiga talada haya ee dalka Hindiya BJP ayaa taageeray sharcigan, halka xisbiga mucaaradka ugu weyn Hindiya Congress-kana uu ka hor yimaaday. Sharcigan ayaa waxaa u codeeyay 99 xildhibaan halka ay diideen 84 xildhibaan markii la horgeeyay aqalka sare. Ra'iisul Wasaare Modi ayaa markiiba bogaadiyay sharcigan cusub, wuxuuna ku tilmaamay guul u soo hoyatay sinaanta jinsiga. Balse dadka qaar ayaa xisbiga BJP ku eedeeyay inay bartilmaameedsanayeen dadka Muslimiinta ah, iyadoo xildhibaan lagu magacaabo Asaduddin uu ku tilmaamay sharcigan weerar ka dhan ah Islaamka. Furiinka saddexda dalqadood ee Islaamka ayaa ku xusan Qur'aanka Kariimka, waxayna ragga awood u siinaysaa inay kala tagaan xaaskooda. Culimada Islaamka ayaa sharaxaya in diinta ay si cad u qeexayso furiinka, tahayna in lamaanaha isa siiyaan muddo 3 bilood ah marka laga xisaabiyo markay dhacdo dalaaqada koowaad, si waqti loogu helo inay heshiin karaan. Ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay.